السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono xaaladda lagu jiro ee coronavirus iyo saameyntiisa dhanka kale bisha barakeysan ee Ramadaan aynu ku jirno iyo saameynta ay leedahay ay kaga duwan tahay bilihii hore barnaamijka waxa iga qayb gali doona Dr. Ahmed Mohamed oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa iga qayb gali doona Sheekh Xuseen Aadan Umar oo ah khadiifka masjidka Yusuf marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa doctor soo dhaw waa mahadsantahay aad baad mahadsantihiin booqashada iyo barnaamijka noo qabanayso maanta aad u mahadsantahay doctor sidoo kale Sheekh Xuseen waad mahadsantahay waana arrin muhiim ah bulshada loo qabanayo aad iyo aad sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa Dr. Ahmed oo aan maanta xafiiskiisa marti u nahay aan ku soo booqanay waxaan u guda galaynaa barnaamijkeena iyo su'aalaha دكتورك يا شيخ هو أي نوع قاعد عليه دونان إن شاء الله بإذن الله الكريم مركه هره دكتورة حالس كجتر حالات هذا دنيا أودن أيودن تاعي وحالة كوفيد 19 علماء الصوماليات قاربة واحد كتل ما من حالة خاصة وضمة قالة وأن حسينين إسلام كيا جارهان صومالي كنا وعي قليا بالشدة inuu yahay xanuunkani gabi ahaanba xanuun aysa oo san mudnayn inay Soomaalidu iska ilaaliso maxaad ka doctor ahaan ka dhaqaatiir ahaan fikirka maxaad ka leeyihiin fikirka runtii fikirka culimada qaar dadku waxa weeyaan horta waxa lagu jiraa xaalad aad u xun oo adduunka dhan saameysay cudurkan coronavirus waa cudur adduunka dhan ku baahay warigiis asoo kale taariikhda aan lagu haynin marka waxaa loo baahan yahay nidaamkaas in la iska kaashado bulshada qaybaheeda oo dhan sax dhaqaatiirta culimada shacabka intaba iska kaashadaan sax laakiin fikirka ah cudurkani wuxuu khaas ku yahay dad gaar ah sax fikir sax ma ahan culimada waxaa loo baahan yahay inay ku baraarujiyaan dadka cudurkani inuu yahay cudur jiro bani aadanka dhanna saameeyo oo masaajidii hal la xiro hadii la yiraahdo la xiro hadii maaragta la kala fogaado la yiraahdo la kala fogaado laakiin wixii inaan laga dhigin wax dad gaar ah ay wataan sax oo dad gaar ah ku dhacay takoor laga dhigo sax ma ahan aad u mahadsantahay doctor waan ku soo laaban doonaa doctor Sheekh Xuseen sheekh waxaan ku jirnaa bishii barakeysan ee Ramadaan bishan barakeysan aynu ku jirno masaajid lama aado taraawixna lagu soo oogo cishana hadalkiisa badaa maxay kaga duwan tahay in oran karnaa bilihii hore markaad eegtay xaaladda guud ee muslimiinta بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وما صنت قاسين horta dhibaato jirta ilaaha naga qaado cudurkan corona virus waa dhibaato caam ah waa balaaya naazila ah oo dadkii oo dhawada camimtay cibaadooyinkii jartay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha waxbarashada nooc walba maxay ahayd nolosha bani aadanka ay ku xiran yihiin waa dhibaato saameysay hase ahaatee haddii aan usoo laabto bisha ramadaan waa bil muslimiinta waajib ku ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kuwii ilaahay rumeeyo bishii ramadaan ayaan idinku waajibinay inaad soontiin horta waa waajib lagama tagi karo marna hase ahaatee sidee baa loo cibaadaysanayaa ayaa insha allahu qodobno ah taasoo ah marka maadaama dadkii cilmiga u lahaa xanuunkan iyo fayraskan faafaya ay dhaheen xanuunkii isku imaashaha taabashada neefta ayaa gudbinaysa masaajidku waa meelaha ugu mashquul badan oo maxay ahayto dadku cudurka iskaga qaadayaan si fiican marka taladooda in la qaataa muhiim ah talada maxay ahayto takhaatiirta looga dambeeyo ayaa muhiim ah saasaba adiga ma santay Sheekh Xuseen kulli waxay yiraahdaan haddaad talada dhakhtarka qaadan weydana xanuunka lagu samraa haddii aad talada macalinka qaadan weydana jahliga lagu samraa waxaan soo laabanayaa Dr. Ahmed oo inoo falanqeynaya ama inaga siinaya talagalooyin ku saabsan xanuunkan COVID 19 doctor waxay yiraahdeen dhaqaatiirta caafimaadka aad ka mid tahay waxyaabaha protectionka ama ilaalinaya ama ka hortagga waxaa ka mid ah hadda maskigan oo kale in afka ku xidhanahay oo kale maxay qayb oo ka qaadan kartaa
karantiilka ama faa'iidooyinka ay leedahay in la iskarantiilo oo dadkii kala fogfogaado oo qofkii gaar joogo faa'iidooyinka ay leedahay dad badan baa waxay leeyihiin waa uun xoogaa cadaadis u arka uun dowladuhu kusoo rogeen dadka aan faa'iido u arkin markaad ka doctor ahaan culimada caafimaad ahaan see u aragtaan waa su-aal wanaagsan horta waxaa jirtaa waxaa qofka maalan haddii balaayo sidan oo kale ay imaado oo cudur u yimaado in looga dambeeyo cidda markaas cilmigeeda fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun culimada sayniska iyo barnaamijkan ku takhasusto oo qolyahan public health la yiraahdo xanuunkan baarto sida khaaska ah ayaga ugu shaqada leh talooyinka ay soo joodiyeen in la qaato aad bay muhiim u tahay ismaqalkuna waa shay muhiim ah waxay ka mid tahay in laga hortago cudurkii oo si dhab loo qaato su-aasha ah karantiilka iyo noocyadiisa dadka horta guud ahaan adduunka waa iskarantiilay oo qof yow iyo qof jiranba waa karantiila lagu jiraa waa mid caam ah oo guryihii hala joogo stay at home waa guryaha jooga iskarantiila waxaa jiro anada maaragtay karantiil kale oo ah qofka markii xanuunka laga helo asagana si gooni haddana midna waa shakhsiyan midna waa guud midna waa mid caam ah marka midkaas caamka markii laga soo tago qofka haddii isku arko xanuun inuu si hadda gooni ah haddana loo sii karantiilo oo meel gooni ah la geeyo oo dadkii la deganaana ayagana si gooni ah loo karantiilo oo la baaro weeyaan marka karantiilkaas guud marka dadka dhan baa wada qaatay adduunka dhan baa wada qaatay marka inaynu qaadanaa waa ku qasbanaa inaan qaadano ku qasbanaa aad iyo aad u maasantay marka adduunka dhan wada qaatay is ilaalino marka alaabtan wajiga lagu xiranayo maskigan afka iyo sanka lagu xiranayo waa ka hortag weeyaan cudurkani maadaama ka hortag bas uu leeyahay oo daawo weli aan loo helin in dadka ay u jilicsanaadaan iskana dhaadhiciyaan ayaga xanuunka inay ka hortagaan sidaba dhakhaatiirta ama culimada waxay maaragtay bulshada wax un bay u sheegaan intay soo qabtaan maaragtay qasab wixii ogama dhigi karaan dowladda amarkeedana in la raaco culimada warkeedana la raaco dhakhaatiirta warkooda la qaato sidaasay bulshada uga nabadgelaysaa xanuunkan aad iyo aad u mahadsantahay doctor waxay yidhahdaan dadka qaar bay ku habboon tahay inaysan gebi ahaanba dibadda usoo bixin oo mar walbaba inay iskarantiilaan ay ka mid tahay inay xanuunka marka horeba iska ilaaliyaan ma daa'irtaynu dhihi karraa mise waa dadka waaweyn karantiilka gaarka ah laleeyahay dadka qaar baa waxay ku habboon tahay inay guriga iskaba joogaanba ay xitaa adeeg usoo bixin waa su-aal fiican dadka loo baahan yahay marnaba inaysan banaanka u baxin dadka qaar dhalinyarada oo kale inay banaanka u yara baxaan wax soo gataan waa iska caadi laakiin dad sideeda waxaa jira totally aan la ogolayn inay banaanka u baxaan guriga in wax loogu geeyo kaliya u baahan dadkaas waxaa ka mid ah dadka cudurrada qaba maaragtay daawooyinka qaata sida daawooyinkan antibiotic nugul yahay daawooyin waxaa jira qofka qaadanayo difaaca jirka hoos u dhigaya antibiotica ka mid ah antithyroidka ka mid ah daraagiskaas daawada waxaa ka mid ah allergiga oo qofka maaragtay isticmaala daawada allergiga qaadanayo difaaca jirka ayay hoos u dhigtaa qofkaas haddii daawadaas uu qaadanayo banaanka uma bixi karo because wuxuu u fudud yahay oo susceptible u yahay in xanuunkii uu maaragtay soo ataago marka dadka noocaasi waa yeelada waxaa lama ogola inay banaanka marnaba u baxaan neefta dadka qabo dadka maaragtay cuduradan psychological ku dhaco dhan dhiigkarkada iyo macaanka iyo xilamida waxaasoo dhan aad iyo aad u mahadsantahay doctor waa kuu soo laabanaya sheekh xuseen aadan sheekh waxaynu ku jirnaa bishii barakaysnayd maxay kaga duwan tahay bilihii hore aynu dibadda u bixi jiray ee soo cibaadaysan jiray nacam bishaan bil barakeysan oo maxay ahayd markii hore dadku mashquulka iska yareyn jireen oo cibaado loo jihaysan jiray ayay ahayd hase ahaatee hadda waxaa timid dhibaato caam ah laakiin qofka bani aadanka muslimka asaan hore u sheegnay mar walba waxaa saaran waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray inuusan taqsiir la imaanin inkastoo ay maxay ahayd bani aadanku marba xaqa ilaahay aysan gudi karin haddana inta tabartooda ah inay dadaalaan fattaqullaha ma istatactum waay hase ahaatee qaabkee loo cibaadaysanayaa waxay u baahan tahay fiqi mucaasara waay waxaan maxay cudur hore u jiri jiray oo culummadu wax ka dejiya ma ahayn laakiin maadaama cudurku uu yahay cudur dilaa ah waxaa jirta qaacida culimmada islaamku ay dejiyeen kitaabka samaawiga dhammaantiisa iyo ambiyada ilaahay dhammaantooda ay heshiis ay ku yihiin
dadna ay ku magacaabaan culimada qaarkoodna waxay ku magacaabaan kuliyaat al-khamsa qaarna waxay dhahaan daruuriyaat al-khamsa waxaa ka mid ah waxaa ugu horeeya waa diinta ilaalinteeda صح diinta marka ayaa yeelan kara qofka markuu dhintay kadib yani diin maxay ahayd inuu ku camal falo lagama rabo diinta qofku wuxuu ku camal falayaa intuu nool yahay oo hay u yahay waxaa ka mid marka diinta waxaa ku xiga ilaalinteeda nafta ayaa ku xigta ileen diintu waxay u baahan tahay naf ayada diin ka dhigata naftuna waxay u baahan tahay waxa ay diin ka dhigato صح waa isku xiran yihiin way isku xiran yihiin صح marka saasa waxaa loo leeyahay maxay tahay qofku markuu dhintay dee kitaabkiisii waa la laabay wax camal ah ama cibaado ah yani sadaqa jaariya hadduu leeyahay oo kale waa gaar ama muslimiintu ama ubadkiisa usoo duceeyaan waa gaar laakiin camalkiisii sida salaada soonka xajka zakadii wixii waa la laabay buugiisii marka sidaa darteed maadaama ay tahay shay naazil ah oo cusub culimada islaamkana ku cusub waxay u baahan tahay marka fiqi mucaasara iyo culimo maxay ahayd oo casri ah oo barnaamijkan baarta ayaa muhiima laakiin sida loo cibaadaysanayo guryaha lagu cibaadaysanaya salaadihii waajibka ayaa la xiray sida ula socotid dowladda Sacuudiga ama laanta u xilsaaran cumrooyinka iyo xajka way joojiyeen xajkii sanadkan iyo maxay ahayd cumradiiba habeenkii sanadka ugu horeeyay waxaan dhageysanayay muftiga Sacuudiga Sheikh Abdul Aziz Al Saud oo dhahay maxay ahayd ciidii xataa waa la joojiyay صح marka shay sunni ah maalintii soonka la joogo oo qofku bani aadamku uu soonaado waa shay waajib ah laakiin leeyliga inaad tukatid waa shay sunna ah waa maxay ahayd dhaqankii saalixiinta iyo anbiyada ilaahay dhaqankoodu ahaa laakiin waxa fiican guriga in lagu cibaadeysto si fiican guriga in lagu cibaadeysto ayaa muhiim ah laakiin cibaadada aan laga tagin ilaahay baryadiisana lagu dadaalo laakiin su'aashaadii hore haddaan ku soo laabto cudurkan culimada qaar waxay leeyihiin gaalo unbu ku wajahayahay muslimiinta ma quseeyo horta waa risaala samaawiya waa fariin ilaahay subxaanahu wa tacaala ka timid dadkana u timid ayadoo maxay ahayd cadaan iyo madow iyo kararkooda la fiirin iyo ayadoo qaarada la fiirin qaarad uu saameynin cudurkan hadda ma jirto muslimiin walaa gaalo walaa maxay ahayd ayu qaara xaramkii buu saameeyey marka waa risaala min allahi oga timid dadka dhulka jooga oo dhan waay sidoo doctorku uu sheegay cudurkan wuxuu leeyahay kaliya ka hortag ka daba tag ma laha marka ka hortaga in lagu dadaalo taladii dhaqaatiirta la qaatay caafimaadka la qaato la kala fogaado guryaha lagu cibaadeysto dadka maxay tahay dhibaatooyinka u nugul inay guryaha joogaan waa shay muhiim ah inkastoo maxay ahayd bandowga hadda jira xoogo iska ciladiisa iska leeyahay laakiin ummadda Soomaaliyeed kuma sii jirtaba صح aad iyo aad u mahadsantahay sheekh waa ku soo laaban doonaa waxaan soo laabanayaa دكتور أحمد دكتور Soomaali badan baa waxay leedahay bandoogan la soo rogay ama kaafiga waxa loo yaqaano habeenkii kaliya la soo rogay muxuu faa'iido ah oo leeyahay maadaama maalintii la isdhex galay oo bulshada maalintii isdhex socoto habeenkii kaliya awla habeenkii loo hoyan jiray guriga loo hoyan jiray muxuu soo kordhinayaa bay leeyahay kaliya macnaha habeenkii bandooga la soo rogay maalinkana dadka la fasaxay fata cilado badan baa iska jira dawladda markay barnaamijkaas ay fiirisay dhaqaatiirtana ay kala tashatay xilliyada habeenkii inta badan dadku way isdhex galaan oo meelaha maaragtay furan bay isugu tagaan sheekaystaan lamana xakameyn karo habeenkii oo askarta meelaha maaragtay loogu talagalay bandowga inay sameeyaan xakameyntoodii baa yaraanayso صح laakiin cudur habeenkii habeenkii dadka ku dhacaya maalintii aan ku dhacayn ma jiro si fiican kaliya waa un taxadar ayaa loo sameeyay maalintii noloshoodii iyo maciish baysan ka maarmaan inay maaragtay raadsadaan oo dadkii ay isdhex maraan oo ay is ilaaliyaan habeenkii صح oo sanitaysarkii iyo kaliya fara nadiifintii iyo wixii ay maalintii sameeyaan marka habeenkii way ka yara duwan tahay oo habeenkii waxa laga yaabaa inaysan ciidamada laftooda nidaamka ilaalinayo inaysan meel walba tagi karin si fiican meel walba inay ilaalin karin oo inta kale yani wadamada qaar xagga amniga baa maaragtay saxnayn sida awgeed baa bandowgii maaragtay loo soo rogay oo ayadoo xaalad amni ah wixii cudur haduu jirana waa iska xaalad amni cudurka laftiisa uu qofku ataagaya oo la dagaalamaya waa cadow marka ciidamada marka wadanka joogana inay ayaguna ay jaanis u helaan
maalinka inay dadka kale ilaaliyaan maalin iyo habeenba marka ma soo wada joogi karaa habeenka marka bandowga noocaas yani islaahay waa loo sameeyay iyo loo sameeyay aad iyo aad mahadsan tahay talagalyadaada wanaagsan fariinta u dambeysay aad u dirayso bulshada ku dhageysanaysana waa u soo laaban doonaa laakiin waxaan ka horeynayaa sheekh waqti cibaadaynu joognaa sidaad soo carabowday ayna waajib tahay in sidii loo cibaadaysan jiray loo cibaadaysto waliba dadaalka la badiyo bishan oo ay caqabado badan iska jiraan fariintaada ugu dambeysa aad bulshada ku daawanaysa u diraysid fariintayda ugu dambeyso siiba maxay ahayd bulshada ku hadlaysa luqadda Soomaaliga tan ugu horeyso waa inay dhiga yeeshaan inaan wax ku arkaan caalamka maalintii waxa dhimanaysa maxay ahayd kumanaan ayaa dhimanaysa hadda Mareykan oo kale ayaa maray maxay ahayd 54,000 aan shalay aan fiirinayay saakin kastoo aan fiirinin marka waxaa fiican dhibka walaalka ku dhaca inaad ku cibro qaadatid ka soo qaad China markuu ku dhacay gobolka la yiraahdo ama la yiraahdo Wuhan isla markiiba ay wadanka karantiileen sax gobolkiina way go'doomiyeen taqriiban adii 2 bilood intuu caalamka soo gaarin ayuu wadankaas joogay wali waxa la joogaa 4,000 iyo wax yar waxaas waxay ku sameeyeen ka hortaga marka ummadda muslimiinta waxa la rabaa inay dhiga yeeshaan ay wax maqlaan taladii taqaatiirta ay ka dambeeyaan mid kale culimada dhahayso masaajidka maxaa loo xiray masaajid lama xirin qof masaajidka ilaahay waa jecel yahay waa guri ilaahay waa meeshii maxayta lagu ilaahay lagu baryayo lagu cibaadaysanaya hasa ahaatee dhibaata timid marka nafta bani aadamka ayaa ka weyn akhafad darreen baa la qaadanaya nacam taas ayaa jirta marka waxaan tala ahaan u soo jeedin lahaa ila dhageysto taqaatiirta iyo dadka maxay aheeto hawshan aqoon u leh taladooda ila dhageysto loogana dambeeyo guryahana la joogo aad iyo aad u mahadsantahay sheekh jazakallahu khayr jaza doctor fariintaada u dambeysay aad u dirayso bulshada ku daawanayso fariinteeda u dambayso waxa weeyaan Soomaalida meel kasta ay joogtaba qaasatan dadka Soomaaliyeed ee wadanka joogo dalka Soomaaliya joogo inay arintan si dhab ah u qaataan dawladda warkeedana ay maqlaan iyo dhaqaatiirta iyo maaragtay culimada qaybaha fahamsan xanuunkan inuu jiro dad badan waxa jira aan fahamsan waxaad uga jeedaa culimada qaybaha fahamsan qaar baan fahamsanay culimada isku wacyi maahan isku aragtina maahan si fiican masaajidada qaar baa la xiray qaarna waa furan yihiin si fiican culimada qudheeda qaar baa le hal xidho qaar waxay leeyihiin yaan la xidhin qaarna waxay leeyihiin yaan la xidhin lama xiri karo oo waxa weeyaan diintii baa lagu soo duulay diintii baa sidan la yeelaya aragti noocaas ay qabaan marka dadka noocaas fikirka noocaas qabo waxaan dhihi lahaa dadka inay u turaan cudurkaana inuu jiro ay ogaadaan si fiican waxa kale oo rabaa halkan inaan dadka uga sheego waxyaalahan maskiga loo yaqaano hadda dadka afka ay ku xirtaan oo kale waxa loogu talagalay bahalkan oo kale in uu qofka 8 saac ka badan inuu xirnaado sax looguma talagalin waa in la iska bedelaa sax dadka qaar waxa arkaysaa maryo iskaga xiranayo iscaburinayo oo ayaga laftoodii dhibaato inay keento caburki si fiican neefti isku celinayo si fiican mid shay wasaq loo waxa arkaysaa aan bala dhaqayno afka iskaga duuban si fiican waxyaalahaas oo dhan maaragtay inay maaragtay iska ilaaliyaan oo ay ka horta waxaan shaygan maanta hadaad xiran tahay 8 ilaa 8 ugu yaraan adiga kan oo kale maalinka hadaad xiran tahay maalinta labaad soo xiran sax iska bedel nadaafadana dee ha lagu dadaalo oo dadku 100% waa dad muslimiina si fiican nadaafadana inay ku dadaalaan wixii la agti gareeyo sidii looga hortagi lahaa xanuunkaana loo wada maaragtay istaago in baan ku baraarujinaya insha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Ahmed iyo Sheekh Xuseen aadan dhammaantiin waan idinka mahad celinaya ka qaybgalka barnaamijka aad iga qayb gasheen iyo bulshada talooyinka fiican ee aad soo jeediseen haday tahay dhanka diiniga iyo haday tahay dhanka caafimaadka labadaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin kulanti dambe oo xiiso badan intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi